Erebixinta loo sameeyay xayawaanka jiraca ee dhalinyarada u isticmaalaan maanduuriyaha. Ninkan waa jiracaysan yahay ama jirac ayuu qaacsaday si uu u marqaamo. Xayawaankan waxa uu leeyahay sun aashita oo aad u daran oo marka qaaceed uu ku soo gaaro aad horay ka noqonayso qof sarqaansan. Daroogada jiraca ee marka aad qaacsato aadan caadiga noqonaynin dhalinyarada Soomaaliyeedna u isticmaalaan maanduuriyaha. Waa kan xayawaanka jiraca ee dhalinyarada daroogo ahaan u isticmaalaan. Xayawaanka jiraca waxa uu ka mid yahay xayawaanada aadka u carada badan marka uu dareemo in lagu soo dhawaado ama khatar aad u weyn. Waxa uu soo diyaa ur aad u daran oo aadan u dulqaadan karin. Ciidanka booliiska ayaa tilmaamay in nuuca quraanjada ka midka ah ee jiraca ay dhalinyarada Soomaaliyeed u yahay mid ka mid ah maanduuriyaasha khatarta ay xilligan isticmaalaan. Booliisku waxay ogaadeen kadib baaritaano ay sameeyeen in xayawaanka jiraca dabka la saaro kadib marka uu aad u gubtana uumiga ama qaaciisa ka soo baxa dhalinyaradu ay neef ahaan u qaataan, sidaasina ay ku noqdaan kuwo marqaansan oo aan waxba ogeyn. Saraakiisha booliisku waxay sheegeen in dhalinyaradu ay si ula kac ah u isticmaalaan bahalka jiraca oo ay ka jaraan qaybo ka mid ah jirkiisa kadibna inta ka soo hartay dib ka saaraan oo ay ku marqaamaan qaaciisa. Jiracu waxa uu ka mid noqday maanduuriyaasha waxaana laga jaraa dabada, dabka ayaana la saaraa. Arrintan ayaa dad badan ku noqotay mid ugub ah oo ay la yaabaan, inkastoo dadka qaarkood aysan ku noqon fajac oo ay og yihiin halista ka imaan karta haddii aad isticmaasho sunta xayawaanka jiraca. Dhaqaatiirta ayaa ka digay in la isticmaalo uumiga jiraca oo leh aashito halis ah, taasi oo sababi karta madax wareer, lalabo iyo matag, kadibna saameyn ku yeelan karta nolosha qofka. Jiraca oo saynis ahaan magaciisa loo yaqaano Tabinoma cells ayaa caan ku ah dunida, waxaana dhaqaatiirta caafimaadku ay sheegeen in jirkiisa ay ku jirto sun aashita oo aad u daran. Waxa uu ka mid yahay bahda quraanjada ee loo qaybiyo afarta oo ay ka mid tahay quraanjada guriga udgoon, quraanjada sokorta ee Soomaalidu u taqaano sokor jaceylka ama macaan jaceylka, iyo sidoo kale jiraca aadka u qurmoon ee marka uu halista arko ama lagu soo dhawaado soo diya dheecaanada iyo sunta aadka u halista ah. Jiraca marka la taabto ama halista uu arko waxaa ka soo baxaya ur aad u daran, kaas oo ka imaanaya sunta aashitada ee jirkiisa ku jirta ee uu hub ahaanta u isticmaalayo marka laga xanaajiyo. Saynisyahanada ayaa ogaaday in maadooyinka maanduuriyaha laga helo xayawaanka jiraca, kuwaasi oo lagu fahmay daraasad dhawaan la sameeyay. Sidoo kale waxaa jira in la arkay shimbiro u muuqda inay marqaansan yihiin kadib markii wax badan ay ka cuneen quraanjada jiraca. Booliiska ayaa hadda sheegay in jiraca laga waayo meelaha qaar maadaama si aad loo raadsanayo in loo isticmaalo darooga ahaan. Haddaba daawad adiga maxay kula tahay? Ma aragtay dad isticmaalaya ama qaacsanaya xayawaanka jiraca?